Somaliland was Somaliland إنك حكون Somaliland إنك ينوش قيسا عد كستو أو يمادا أجنبي يوم حياتي يو Somaliland دربا وحوي وطن كيوش قينيا هدي أنا يسوون أكثر إنه وش قينينا إنه حبرنا معها إنه يفهمت الشيء نويان هدي كلا وحلوه إنه حاجة متشر وحنقول أمانة إن شركتهم كقولها إن إلهاين فكرك حلابور كإن حفيز كان لسمايو كلمة جندر وحويان وحرير كدقن دقالة ودحية رجية دمر كأي بولش صديسته بولش يمكن هو كل تادي حرير كا كلمة جندر وحي هذا حرير كدقن دقالة أي بولش ولا هذا هاي يو أي سمايسته أي كلمة اللي هو جندر رجنا معها دمرنا معها لكن وحق صورك وكو حق صورة إن لبضوا قلبا أي هلان حقي أي لها بدنا إنه لسه رفنا إنه سمعنا قاطع dumarku ay baarlamaanka ku yimaadaan waxaynu ognahay in ay adag tahay habluhu inay cod ku yimaadaan laba dhibaatana hor taagan labada dhibaato hor taagan mid waa haweenka laftooda oo aan iyaga isu codaynaynin oo marka laga hadlayo waxa aynu xaqiiqo ah oo jirta inay haweenku populationka ugu badan yihiin rag iyo dumar marka la yiraahdo inta ay iyagu xambaartaan ee guriga u joogta ee ay dhaleen marka lagu darana iyaga overwhelming majority ah marka horta iyaga lagama yeelayo inaanu maxaan ku dhahday aana iyagu isu codaynaynin laga yeeli maayo arrintaas haweenka ka qormi mayso anigu xaqiiq baan idin sheegayaa been inaynu iskula meeraysanana maaha inagu aynu isku tashano oo aynu ka baxno kolba meel yar oo aynu seminar yar ku galno aynu nidhaahno dumarkii baa loo qabanayaa seminar xildhibaanadii ka qayb galaya golayaasha ayaa loo qabanayaa seminaro laakiin mainly bal aynu u fadhiisano aynu keenno maskax dumarkeena aynu ku kala saarno in yarna aynu qaadano awood leh xafiiskani isaguna waxa looga baahan yahay inuu daba galo soo hubiyo markuu ka yimaado gudihiisa marka 28 xubnood ee golaha fadhiya iyaga ay ka mid noqoto oo ay run ka noqoto oo commitment-koodii ay la yimaadaan inay arrimaha haweenka iyo baahiyaha haweenka ay kor u qaadaan iyagoo adeegsanaya si kale iyaga ay kor u qaadi karaan ma jirto laakiin shuruucda la sameynayo actiska la ansixinayo waxaasoo dhan in la eego boqolkiiba 75 ayaa halkan afka lagu dhuftay waa noqon kartaa runtii marka la eego iyaga iyo intay gacanta ku hayaan marka la eego inay ka maqnaadaan oo arrimaha muhiimka ah go'aamintooda iyo ka hadalkooda iyo wax ka qabashadooda inay dumarkii ka maqnaadaan waxa inagu tahay runtii dhaawac bay inagu noqonaysaa horumarkeena wax yeelaysaa ummadnimadeena wax u dhimaysaa marka xafiiska kanu golaha wakiiladu wuxuu u abuuray ama aanu dabada uga riixnay inuu qaybtaas uu wax ka bedelo oo toosiyo waxaan samaynaynaa wax qorshaysan oo maxay ahayd cilmi runtii ku dhisan sidoo kalena dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waafaqsan marka waxa weeyaan meel kasta madaxa lama galayno laakiin waxaan siinaynaa ahmiyad arrimaha uu xafiiskani ka shaqeyn doono maadaama uu yahay xafiis ka mid ah honorable members of the House of Parliament, House of Representatives, respected members of the government, the chairman of Kulmiya political party and the other representatives from the national political parties, the respected civil society groups, the international partners, and the distinguished guests, colleagues and friends, ladies and gentlemen, welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just to warn you, much of the proceedings today will be in the English language, and including the presentations. Today marks not just the launch of an office, but the renewal of a promise. The promise of a parliament that listens to everyone, every voice, values every citizen, and stands as a model of fairness for our nation. Ladies and gentlemen, the Women Advisory Office was created to ensure that the principles of equality, inclusion, are not abstract ideals, but living, working realities in our legislative process.
Over the years, we have seen progress, but also challenges. Moments that reminded us why this office is essential. And so, today, as we launch, we commit to doing more, doing it better, and doing it together. Gender equality is not a women's issue. It's a national priority. It's about building a parliament that draws on the full strength of our society, the wisdom of our mothers and our fathers, the energy of our youth, especially young men and young women, and the insight of all who call this a home, Somaliland. When we empower women to participate fully, we do not take away from anyone. In fact, we multiply the possibilities for everyone. Dear colleagues and partners, the mission of this office cannot succeed in isolation. For the Women Advisory Office to have a real impact, we must work together, hand in hand, with every department of the House of the Representatives, from legislative committees to the administration. madax iyo manjo waxba idin kala saari maayo aad baa u badantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa runtii waan ku faraxsanahay sida aad uga soo qayb gasheen iyo sida aad uga qayb qaadateen hadday hadalkeedii tahay dhiirigelinteedii hadday tahay waanadeedii hadday tahay iyo tusaalayntiisiiba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan u malaya halkan hadal badan oo aan dhahaa kuma hadhin waxaan moodaa in dadku isku aragti iyo isku fahan arrintan laga wada yahay oo meel looga soo wada jeedo arrin aniga kaliya iga soo go'day maayo waa arrin xildhibaano badan oo golaha wakiilada ku jira ay qabaan oo aaminsan yihiin weeye waxaana la noqotay in loo baahan yahay xafiiskan ujeedadeedu waxa weeye sidii loo yiri inuu qayb ka qaato horumarinta haweenka xagga marka laga eego siyaasadda bulshada dhaqaalaha dhinac walba wixii ay xaq ay lahaayeen inay ka qayb qaataan oo lagu kobciyo oo lagu weeye ujeedadiisu ma aha mid loo abuurayo in maxay hayto ama tartan rag lala tartamo ama la colaadiyo ama maxay hayto dhaqankeena iyo diinteena iyo bulshadeena aragtideeda wax lagaga bedelo midna maaha waxa weeye sidii wax loo toosin lahaa oo qarandhiskeena loo toosin lahaa oo inta badan waa taa la wada sheegay la yiri marka la qiyaaso qayb weyn bay ka noqonayaan aad bay uga badanayaan rag uga badan yihiin boqolkiiba 75 ayaa halkan afka lagu dhuftay waa noqon kartaa runtii marka la eego iyaga iyo intay gacanta ku hayaan marka la eego inay ka maqnaadaan oo arrimaha muhiimka ah go'aamintooda iyo ka hadalkooda iyo wax ka qabashadooda inay dumarkii ka maqnaadaan waxa inagu tahay runtii dhaawac bay inagu noqonaysaa horumarkeena wax yeelaysaa ummadnimadeena wax u dhimaysaa marka xafiiska kanu golaha wakiiladu wuxuu u abuuray ama aanu dabada uga riixnay inuu qaybtaas uu wax ka bedelo oo toosiyo weeye inuu wax kale ma taqaana ku mashquulo oo dadka qaar baa waxyaalo kale ka hadlo ku mashquula ma aha waxaanuun intii ay salbitay markii baan raacinayaa magacan genderka iyo saacade iyo ka hadlay arrintaas siyaalo badan baa faham badan baa dadku siyaalo badan oo wadankeena loo geliyay ama dadkeena loo geliyay khalad uga yara fahansan baa jira waxaanu garanay in aan magaca aanan haddaan doono aan u aragno in dadkeenu intuu jahwareerin lahaa inaynu u bedelo waa haweenun jeedada haweenka halkaas sida ku taala la talinta arrimaha haweenka in xafiiska magaciisu uu noqdo
ayaanu isla qorshaynay wax kale oo wixii kaleba waa la wada yidhi wax kale oo aan idhaaho meesha maanta halka yaalla ma jiro golaha wakiiladu aad buu u dhiirigelinayaa xafiiska intii karaanka yaga ah waxaanu intaan ku dhahayaa waxaan u mahadnaqayaa qolyihii nagala shaqeeyey arrintan xafiiskan abuuristiisa hay-adda nimid la yidhaaho oo ay maalgelinayso taageeraysay EU-du ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa EU-da iyo nimidba waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiir kaltuun oo bilowgiisii abuurto iyana qayb ka qaadatay aasaaskii maxaato xafiiska kan iyo hawlihiisa waxa xafiiska kan aanu imtixaan bay ku soo baxeen labada gabdhood ee iminka ka shaqaynaya waxaanuna u aragnay inay yihiin gabdho ku runtii kartidii iyo aqoontii ba leh inay hawshaa fuliyaan intaasun baan ku soo gunaanadayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka hore waxaan salaamayaa guddoomiyaha golaha wakiilada yaasiin maxamuud waxaa kaloo aan salaamayaa dhammaan wasiirada halkan fadhiya xildhibaanada guddoomiyaha xisbiga kulmiya hablaha sharafta leh halkan fadhiya inamadaba haddii aan ku noqdo ujeeddada maanta aynu isugu nimid waxaan jeclaan lahaa inaan ka warramo ujeeddada loo sameeyey xafiiskan iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xafiisyadii hore xafiiskan samayntiisa iyo hawlaha loogu talagalay inuu qabto in badan waxaynu ka soo hadli jirnay hawlaha haweenka hay-ado badan oo ururada haweenka u horeeyaan oo kuwa international jiraan oo xukuumadda ka mid ah intaba waa laga soo shaqeeyay hawlaha haweenka laakiin tani way ka duwan tahay waxay u gaar tahay golaha wakiilada xafiiskan waxaa loogu talagalay halkii awal hore inagu aynu soo curin jirnay maxay haweenku u baahan yihiin baahida haweenka sidee loo horumarin karaa iminka waxaa la doonayaa golaha laftiisa inay ka timaado xafiiskan wuxuu u gaar yahay ujeeddadiisuna ay tahay himilada loo sameeyena ay tahay 82 xildhibaan ee fadhiya ee uu hogaaminayo shirguddoonku maxaa iyaga ka dhaba siday doonayaan inay u horumariyaan hawlaha haweenka iyagaa horta laga rabaa maxay sameynayaan tusaale waxay u igma yihiin inay dalka u sameeyaan shuruucda dalka sharci kasta ama xeer kasta oo la dhaqan gelinayo ama la ansixinayo waxaa loo baahan yahay in la eego haweenka siduu u taageeraya haweenka maxaa ugu jira haweenka waa maxay caqabadaha uu ka hor qaadaya markaa guud ahaan horta waa inuu ka yimaado ujeeddadana ay ka timaado waxqabadkana uu ka yimaado golaha wakiilada waxyaabaha qorshaysnaa ka mid ah in la sameeyo kookas haweenka ah oo baarlamaanka ah wakiilada ah inagu waynu ognahay oo hal xildhibaan oo keliya fadhida halka wadamada kale kookaskaasi laga sameeyo haweenka memberska ah ee baarlamaanka laftooda ah maadaama inagu aynaan lahayn halka waxa geli kara imka ragga jooga iyo xildhibaan aamina unba geli kara iyagaana sameyn kara waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee xafiiskan ay tahay inuu daba galo ama uu ka shaqeeyo wasaaradaha jira hay-ado madax bannaan baa jira hay-ad kasta ama dawli ha ahaato ama yaanay ahaanine horta waa in laga helo gender policy ma leeyihin gender policy haddii aynaan lahayn oo aan la soo aasaasin hoosta aan laga keenin laga soo samayn xagga sare waxba lagama keeni karo innagu waxaan leenahay wasaaradii noo qaabilsan wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ayaa kow ka ah wasaaradaha kale iyaguna mandatekoodu ku jirtaa wasaarada badan hay-adaha loo kala joogaya kuwa internationalka intaba way ku jiraan laakiin hogaamin baa jirta si haddaba la isaga kaashado wasaarad waliba waxaynu imika sameynaa siyaasadaa la sameeya siyaasadda caafimaadka siyaasadda waxbarashada siyaasadda beeraha siyaasadda biyaha siyaasadahaas oo dhan waxaa la doonayaa in la eego maxaa haweenka ugu jira haweenka sidee looga hawlgelin karaa baahiyaha haweenka sidee kor loogu qaadi karaa
taa waxaa mas-uul ka noqonaya markaa wasaarad kasta ama hay-ad kasta in iyadu horta eegto siyaasaddeeda maxay doonaysaa inay qabato xafiiskani isaguna waxaa looga baahan yahay inuu dabagalo soo hubiyo markuu ka yimaado gudihiisa marka 82 xubnood ee golaha fadhiya iyaga ay ka mid noqoto oo ay run ka noqoto oo commitment-koodii ay la yimaadaan inay arrimaha haweenka iyo baahiyaha haweenka ay kor u qaadaan iyagoo adeegsanaya si kaloo iyaga ay kor ugu qaadi karaan ma jirto laakiin shuruucda la sameynayo actiska la ansixinayo waxaasoo dhan in la eego Selma kolley hawlo badan baa u yaala hawlahaasoo dhan waxaa laga rabaa Selma laga rabaa runtii oo aan aad iyo aad u aaminsanayn inay ka soo baxaysa kartideedana leedahay ay ku daba gasho xildhibaanada guddiyada jira guddi walba waxbay qaabilsan yihiin si gaar ah waxay qaabilsan yihiin guddiyadaasi waxbay soo saaraan xeerar bay eegaan dib u eegis bay sameeyaan kuwaasoo dhan ayay tahay markaa in la daba galo la eego maxaa dumarka ugu jira ujeeddada horta waa intaa marka tii hore way ka duwan tahay hawlihii hore inagu aynu qaban jirnay haddaynu nahay hay-adaha injooyada ama hay-adaha kale waxay kaga duwan tahay marka waxaynu ka doonaynaa golaha wakiiladu inuu horumariyo kor u qaado baahiyaha haweenka ay soo saaraan wax horumarin kara ay ka qaadaan caqabadihii hore u jiray iyadoo markaa adeegsanaya gacmaha kale ee khibradda lahaa ee hore uga shaqayn jiray koley intaasaan kusoo koobi doonaa waxaan jeclay sinan iyo sharaxo uun ujeeddada xafiiska loo sameeyey aad iyo aad baa u salaamu calaykum marka xigta marka hore waxaan la hadlayaa gudoomiyaha xisbiga sharaf korkaaga ahaato gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan doonayaa inaan u sheego maadaama uu gudoomiyihii xisbiga wadani uu tegay shir u baxay uu ka maqan yahay wadanka saaka ka baxay anigu aan joogo anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga isla mar ahaantaana ah wasiirka shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska haddii aynu gudagallo hadalkeenna ama munaasabaddan maanta aynu isugu nimi marka hore waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo xaqiiqdii iyaduna imtixaanka ku guuleysatay aanan huba Selma Sheekh inay tahay qof aqoon ahaan maadi ahaan iyo diini ahaan iyo maskax ahaanba runtii haweenka wax badan kala qaban karaysa Selma waxaan leeyahay hambaliyo marka hore xaqiiqdii Selma waqti kooban oo wada shaqeynay ayaan bartay heerka ay ka taagan tahay haweenka iyo horumarkiisa maadaama maantana imtixaankii la qaaday ay ku soo baxday isla mar ahaantaana ay noqotay la taliyaha baarlamaanka arrimaha haweenka daanan khaldanayn waa soo dhaweynaya mar labaad runtii xafiiskani waa xafiis haweenku u baahnaa hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay la talin horumarkooda kaleba ah waxaynu ognahay haweenku mar walba caqabadaha hor yimaada caqabadahaas ay ka mid yihiin caqabadaha kaga yimaada siyaasadda iyo awoodeynta dumarka xagga horumarka iyo ka qayb qaadashada baarlamaan hadday tahay iyo hadday kala wakiilata wasiir tahay iyo hadday meel walba tahayba caqabadayna hortaagan ee ugu horeysa waxa weeyaan is-aamin la'aan marka hore aan idhaahdee koow inaynu inagu is-aamino aynu noqono kuwa ugu badan ummad walba meel ku nool marka si kala laynoo maagayo waxa la yiraahdaa raggu way dhintaane dumarku maba dhintaane mar walba waa badan yihiin way joogaan haddana badnaanteenaas waxaad moodaa inaanay baraka lahayn ilaahay barakaha inoo yeelaan leeyahay xafiiskan maanta runtii waa xafiis annaguna aanu la shaqayn doono arrimaha haweenka waxa weeyaan waa mid mudnaanta koowaad aynu siin doono xaqiiqdiina inaynu helo goob gaar ah oo aan xukuumadina ahayn asxaabtina ahayn laakiin lagala taliya haweenka waynu u baahnayn sida aynu ka warhayno hadda waqtigan xaadirkaynu taaganahay haween aad u fara badan ayaa doonaya inay wakiilada iyo deegaanadaba ka qayb galaan taasina waxaynu ognahay hore inaynu casharo badan uga soo barannay laakiin maanta aynu taaganahay waqti aynu u baahannahay inaynu dumarkeenni intaynu bannaanka joogno aynu soo kala reebanno aynu inagu in gaara oo awoodda aynu saarnay inagoo ku soo kala saarayno weliba kriteria aynu u samayno 40 dumar iyo 50 dumar toona hadday xildhibaano isu soo sharaxaan waxaynu ognahay inaanay soo baxayn laakiin inagu maanta aynu awoodda saarno aynu aqoontii aynu ka barannay doorashooyinkii hore ayna soo maray ugu badnaan macalgolaha deegaanka ee degmooyinka bannaanka ah aynu caasimadda ahayn aynu ku talagalno in kooban intaasoo aynu awoodda saarno kala shaqayno sida ay u noqon lahaayeen mas-uuliyiintii inoo soo baxayay sababtoo ah 3 xisbi qaran baynu haysanaa
kootada marka laga yimaado saddexdaa xisbi qaran waxaynu u baahanay saddex xubnood xitaa haddii aynu ka tartansiino waxa weeye waa saddex xubnood oo aynu awoodda saari karayno laakiin sida aynu ka warhayno xaqiiqadu tahay deegaan walba ama qoys walba aynu ka soo jeednaa wuu shirayaa cidda uu soo saarayo bannaanka keenayaana waa inaan rag reer waliba way wada fadhiisanayaan waxay odhanayaan hebel baan anagu isku raacnay waad ogtiin miidiyaha waxa ka socda laakiin waxaynu u baahanay inagu inaynu idhaahno inagoo dumara waynu wada fadhiisanay guddi baynu u saarnay intaasoo dumaraanu la soo baxnay intaasoo dumara waxaan awoodda ku saaraynaa inay nooga qayb galaan golayaasha hadday baarlaman tahay iyo hadday golo deegaan tahayba taas unbaynu waxaan u malaynayaa wax ku heli karaynaa laakiin xaaladda maanta taagan waxba ku heli mayno xafiiskeennaana waynu ku xidhnaanaynaa annaguna waanu la shaqaynaynaa waanaynu ka wada shaqaynaynaa xaqiiqdii laakiin taa oo aynu samayno mooyaane hahamiyiina inuu qof inoo soo baxo anigu xaqiiq baan idiin sheegayaa been inaynu iskula meeraysannana maaha innagu aynu isku tashanno oo aynu ka baxno kolba meel yar oo aynu siminaar yar ku galno aynu nidhaahno dumarkii baa loo qabanayaa siminaar xildhibaanadii ka qaybgelayay golayaasha ayaa loo qabanayaa siminaaro laakiin mainly bal aynu u fadhiisanno aynu keenno maskax dumarkeenni aynu ku kala saarno in yarna aynu qaadano awood leh mar walba aynu ka shaqayno awoodaynta dumarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filaynaa inay dhowr iyo 30 sannadood tahay Somaliland hadda intaynu la soo rafanaynay arrinta maxaan ku dhahdaa ee haweenka waxayna aynu ognahay ilaa iyo iminka ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda inay nagu yar tahay waxaynuna aynu ognahay inaanay hadda iyo wixii ka dambeeya sinaba suurtagal u noqonaynin inaanay maxaan ku dhahdaa ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda golayaasha qaranka ay iminka ay intaa ku sii ekaadaan waxaan filayaa markaa hadda iminka arrinta ugu dambaysa muddaynu la soo rafanaynay inaynu samayno koote dumarku ay baarlamaanka ku yimaadaan waxaynu ognahay in ay adag tahay habluhu inay cod ku yimaadaan laba dhibaataana hortaagan labada dhibaato hortaagan mid waa haweenka laftooda oo aan iyaga isu codaynaynin oo marka laga hadlaayo waxa aynu xaqiiqo ah oo jirta inay haweenku populationka ugu badan yihiin rag iyo dumar marka la yidhaahdo inta ay iyagu xambaartaan ee guriga u joogta ee ay dhaleen marka lagu darana iyaga overwhelming majority ah marka horta iyaga lagama yeelayo inaanu maxaan ku dhahday aan iyagu isu codaynaynin laga yeeli maayo arrintaas haweenka ka qormi mayso mid kalena qormi mayso oo ka ragga laftiisu haweenku way u codayaan laakiin ragguna haweenka uma codeeyo labada problem baa hortaagan in haweenkeenu ka qaybgalka siyaasadda golayaasha qaranka ay ku yimaadaan si taas ay u fududaato waxaa lagama maarmaan noqonaysa golayaasha qaranka ee xukuumadda madaxweynuhu uu madaxda ka yahay golaha wakiilada iyo saddexda xusbi qaran inay la yimaadaan oo aynu inteenaasi la nimaadno barnaamij sahlaya inay haweenku golayaasha ay yimaadaan beri dhowto waxaa inoo yimi kenyaanka qola baarlamaankeenna loo soo diray giddigood waxay noqdeen haween dabeedna waxay dhahaan maxaanu idinkula hadlaynaa haweenba idinkuma jire oo dayada lafteeduna xaqiiqa rasmiya marka waxaan is leenahay xafiiskani qayb weyn buu ka tarayaa arrimaha haweenka oo aan ahayn keliya inay golayaasha ka mid noqdaan ee ah dhammaan xukuumadda dhammaan xusbiyada dhammaan hay-adaha ganacsiga ee qaranka in xafiiskan laftiisa uu ka shaqeeyo haweenku sidii ay uga muuqan lahaayeen dhammaan intaas oo dhan waxaan leeyahay arrintani waa arrin qaran waa issue qaran maaha mid axsaabeed ay wax ku kala jiidanayaan maaha mid xukuumadeed waa arrin qaranka dhammaantii saamaysa
waana arrin dhaawac gedigan inagu wada ah way kori weyday harina way u kori weyday waxaynu u baahannahay waqtigii aynu imika arrintaas qayb weyn ka qaadan lahayn baynu maxaan ku dhahdayay ayay lagama maarmaan tahay waxaanu soo jeedin lahaa guddoomiyaha golaha oo xafiiskan hal abuuray iyo xafiiska salmo oo loo magacaabay waan filayno qof aad iyo aad sidii ragii hore iyo hablihii horeba u sheegeen qof aad muddo karo ah jariidad qudha afka ingiriisiga ku soo baxdo ajnabigu inaga akhristaanba dalka ka soo baxdo keligeed baa soo saarta marka waa qof aad iyo aad dedicated oo ah oo aad iyo aad halabuurkeedu u wanaagsan yihiin inay soo qabanqaabiyaan shir ay isugu yimaadaan saddexda xusbi qaran hadda saddexdii xusbi qaran saddexdii guddoomiye keligii baa ka jooga macquul lama noqon karto saddexda xusbi qaran oo shirkaas saddexda guddoomiye ay joogaan guddoomiyaha baarlamaankuna uu joogo guddoomiyaha guurtiduna uu joogo madaxweynuhuna uu joogo marka halkaa laga soo hal abuuro oo laga diyaariyo barnaamijka sahlaya doorashada baarlamaanka ee soo socda sida haweenku tiro macnalo oo muddo kale ugu yeelan lahaayeen intaa waxaa harsani waxa weeye inay dumarkuna kaalintooda ka soo baxaanoo ay dumarka u codeeyaan ragguna dumarku way u codeeyaane ragguna ay dumarka u codeeyaan marka waxaynu u baahan nahay bacdama aynu qarsannahay inay populationkeenna qayb ka mida yihiin oo qayb muhiima ka mida yihiin oo nus waynu ognahay oo weliba aynu filayno in ay nus ka badan yihiin inaynu maxaanku dhahdaye qaranka aynu arrintaas ka daboollo oo mashaakilkeedu ka yaraado oo ay bulshada qaybtaa ka mid yihi ay qayb ka noqoto hay-adaha golayaasha qaranka looga taliyo waan soo hambalyaynaynaa guddoomiyaha baarlamaanka salmana waynu mahadnaqaynaa waanaynu hambalyaynaynaa xafiiskan inay madax ka tahay haweenkana waxaanu leenahay la shaqeeya kolle xusbi ahaan kulmiye ahaan waan la shaqaynaynaa dhowr jeerna ma arrinkan la yidhaahdo kootada xusbiyada kale mar hore iyo mar dambeba way nagu diideen waxaan rajaynayaa bal inay ama kootadan aan keennay aqbalaan ama ay farsamo kala keenaan aanu anagu farsamada keenaan aanu aqballo laakiin mid kalena keeni mayno kootadiinana aqbali mayno baarlamaankana laga yeeli maayo golaha wakiiladana laga yeeli maayo ka hadda fadhiyaana wuu diiday kii ka horreeyeyna wuu diiday marka waxaynu u baahan nahay dee hadday suuragal noqoto oo golaha baarlamaanku diida haweenka oo xisbiyada qaranku ay haweenka diidaan dee dhaawac haweenku waxaynu kordhinaynaa dhaawac qaran ayaynu gedigan wada ogolaanaynaa inuu weligii yaalihii qaranka kusii jiro aad iyo aad baan guddoomiye ku hambalyaynaynaa salmana waanu hambalyaynaynaa waan anigu aaminsanahay inay xafiiskan ka soo bixi karto waxaana soo jeedinaynaa inta kalena inaynu la shaqeyno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo nabadgelyo leh aynu maanta halkan aanu wada fadhino xafiiskan horta waxa weeyaan xafiis aad iyo aad u muhiima oo loo baahnaa guddoomiyahana aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa laakiin guddoomiye farato waxa weeyaan haweenka intii aan anigu ka arkeen la shaqeeyey waa qof aad iyo aad haweenka aan hoosna u dhigin kor u qaada hadalkooda dhageysta taladooda dhageysta marka runtii waxa weeyaan guddoomiyuhu wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka dowladda ku jira ama maxay ahayd xukuumadda ku jirta ama golaha ku jiraan aad iyo aad u taageero isaga iyo maxay guddoomiye Saleebaanba berigii hore intaanan gelin maxay ahayd shaqadan aan imika ku jirtay aan ku jiray maxay ahayd arrimaha dibadda ee guurtida iyo wakiilada waxaan u haystay inay tahay inaan gelayo aflibaax waxaan lahaa warheedhe haddaba sideebaad aad odayaasha intaad dhex gashid aad u tiraha sidan aad wax u samaynaysaa waa khalad bal sidan aynu samayno ama sidan aynu tijaabino laakiin waxa aan helay dad aad iyo aad u maskax furan oo ku dhageysanaya oo hogaamintaada ogol
oo maxaa ahayd tilmaantaada ogol oo wax ku weydiinaya oranaya bal haddaynu sidaa nidhaahno bal ka waran oo haddaanu dhinacan u rogno ka waran oo hadday sidaa noqoto ka waran oo wax walba kaa tala gelinaya oo kuu yeedhaya I mean you know marka aan bilaabay I remember gudoomiye Faraton ba maalin secretariadiisa ila soo hadashay tiri Faadimo gudoomiyaha ku doonaya masan yaabana ma gudoomiyahe gudoomiye Faraton ba ku doonaya masan yaabana talo muxuu doonaya marka xafiiska tagay waan yaabana moogtay waxaan lahaa talo muxuu ku yeeray talo maxaad samaysay ina siciiday kulli afkaaga dheer baa meel ku geliyay waxaana talo tiriyay lagu haystaa waa maxay waan u tagay oo wiila fadhiistay oo wuxuu yiri maxaa haydeen qolo wakiiladoon iyo guurti baad ka xaynaysaa caynkaas sideeba wanaagsan caynkan shock baaban qaaday because waxa weeyaan waa gudoomiye dhan intuu ku yeeray ku soo fadhiisiyay tala ku weydiiyay wixii aad sameeynaysaa la socda and I have to I appreciate it so much and inta badan dadku waxay u haystaan raggu waliba dumarkeenu inay raggu inaga soo horjeedaan anigu waxaan oran jiray wallahi inaanay idin doonayn inaan wax noqono oo inaan meel gaarno ma ogolidin laakiin intii aan la shaqeynay waxaan ogaaday inay runtii aanay inaga soo horjeedin aanay diidanayn inaan la shaqeyno oo aanay diidanayn taladeena ee problemkeena haysataa waxa weeyaan runtii intaynu si wanaagsan u wada fadhiisanay maxay ahayd si wanaagsan maynu rayigeena iyo wada hadalka iyo wada shaqeynteena marka maxay ahayd xafiiskan waan soo dhaweynayaa 100% laakiin shaqo fara badan buu baahan yahay anu already meesha waan ku jiraayo waan la shaqeynayaa Salma laakiin shaqooyin fara badan bay u baahan tahay ugu hambalyeynaya in halkaas inoo joogto Salmi gudoomiyahana waxaan ku hambalyeynayaa inaanu ka dhigin waxa la soo magacaabo xafiis waliba iyo wasaarad waliba waxay leedahay xafiis gender oo iska fadhiya ma aha wax jira iyo wax shaqeeyo toona markii uu horeysay waxaan doonaa inuu noqdo kii inoo shaqeeyay shaqadiisana runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu noqdo waxaan yar jeclaan lahaa kelmadda gender inaan sharxo kelmadda gender ma aha dumar ragna ma aha waa lagu yar wareeraa kelmadda gender waxa weeyaan waa xiriirka dhaqan-dhaqaale ee u dhaxeeya rag iyo dumarka ee ay bulshada samaysato bulshooyinkuna way kala jaad yihiin xiriirka kelmadda gender waxay ahayd xiriirka dhaqan-dhaqaale ee ay bulsho leedahay iyagu ay samaysato ayaa ah kelmadda la yiraahdo gender ragna ma aha dumarna ma aha laakiin waa xaqsoorka waa ka u xaqsoora in labada qoloba ay helaan xaqi ay lahaayeen aad baan ugu faraxsanahay marka horta maanta inaan isagana helo waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu noqdo xafiiskan uu inoo sii jiray saan u sheegnay horeba laakiin hadda inuu noo shaqeeyo inuu noqdo meesha laga soo geliyo sharciyo badan baa jira oo aanu runtii salugsanahay haddaan haweenka nahay oo uu ka mid yahay ka dhalashadu identity kaasi iyo wax la mid ah meel aad u raacdo iyo cid aad kala hadasho xafiisooda rag u noqday ragna waxay yiraahdaan dumarka shaqo naguma laha marka balbaan ruun horta aan simano bahalkan wax ku yeelanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu helo maxay tahay xafiiskaas oo aad inoo shaqeeyo waxaan doonaynaa anagu haddaan nahay ururada bulshada guud ahaan dhexdaan u soo xidhanayno inaanu la shaqeyno Salma gudoomiyaha gudida loo saaray maxay tahay kokaska loo saaray guud ahaan iyo waxa la wixii nagaga soo beegmay guud ahaan anaguna diyaar baan u nahay. Today we stand at a pivotal moment in our nation's history, the inauguration of Gender Advisory Office within the Somaliland House of Representatives. Is not just a procedural event, it is a powerful reaffirmation of our collective commitment to a more inclusive and just society. The presence of the leaders of members of our political parties here today is particularly significant, and it fascinates this inauguration of this noble, very important office. It sends a clear message that is not a partisan issue. It is a national priority. Our political platform might differ in various policies, but on this fundamental principle, the Somaliland cannot reach its full potential unless all of our citizens
women, men alike have an equal voice. We are united. This new office will serve as a vital resource for us all. It will provide our parliamentarians with the necessary data and expertise to ensure that every piece of legislation we debate and pass is gender sensitive. It will help us to identify, disseminate, dismantle the barriers. labadii sano ugu dambeysay waxaanu la shaqeynaynay golaha wakiilada annagoo kala shaqeynaynay arrimo kala duwan oo ugu muhiimsan tahay isku xidhka bulshada iyo golaha wakiiladu waxaanu kala shaqeynaynay guddiyo ka mid ah golaha wakiilada oo ay ka mid yihiin guddiga dhaqaalaha iyo guddiga markaas waxa weeyaan dabagalka iyadoo ujeedadu ay tahay in bulshada soo dooratay golaha iyo golihii markaas waxa weeye ay wada shaqayn yeeshaan sidoo kale waxaanu kala shaqeynaa golaha in xildhibaanada la soo doortay dadweynuhu ay la xisaabtami karaan taasoo ah wax inagu cusub tusaale ahaan in la ogaan karo xildhibaanku inta jeer ee golaha markaas waxa weeye kalfadhiga yimi dadkii soo doortay inta jeer uu hadlay arrimahooda metelay waxaanu ku ammaanaynaa shirguddoonka golaha inay lahaayeen fikirka hal abuurka in xafiiskan la sameeyo annaguna aanu farsamo ahaan ka taageernay laakiin curinta iyo hal abuurku inuu ka yimi shirguddoonka xafiiskan maanta aynu daah furayno mudduu soo shaqaynayay waxaa la taliye ka ahayd wasiir kaltuun oo halkan inala joogta waan uga mahadnaqaynaa shaqadii ay soo qabatay shirguddoonkuna inay maanta xafiis gaara loo furay oo markaas waxa weeyaan laba la taliye ay joogaan Salma iyo Xamdo oo markaasi ku xigeen waan ku ammaanaynaa waxaan doonaynaa xafiiskan in dhammaan hay'adaha la shaqeeya golaha haddii ay yihiin kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahiba inay la shaqeeyaan ujeedka guudna Salma ay noo sheegtay waxaynu doonaynaa inuu noqdo entry point-ka ay ka soo gelayaan waxa weeyaan dhammaan daneeyayaasha doonaya in arrimaha haweenka wax laga qabtaa ugu dambeynna waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo midowga Yurub oo maalgeliyay barnaamijkan labadii sano ee ugu dambeysay aanu soo wadnay barnaamijkan oo la yiraahdo dawlad kaab baarlamaanka oo kaliya lama shaqeyno laakiin waxaanu la shaqeynaa institutions kale oo ay ka mid yihiin ururada bulshada iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka iyo guddiga diiwaangelinta xisbiyada iyo markaas ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka aad iyo aad baan mar labaad idin salaamaya waxaan leeyahay xafiiskan hal iskarab taago halana